halka aad naga daawanaysaan waa Somali Sad kulan wanaagsan waxaan idinka soo waramanaa magaalada Boston ee carinka dalka Mareykanka waana barnaamijkii hadii jeer idinkaga imaan jiray jaaliyadaha dalka dibadiisa siiba wadanka Mareykanka siiba goboladan New England waxaanu maanta nasiib u helnay in aad iyo aad nasiib ugu helnay inaanu helno ama aanu waraysi ka qaadno in danjire kamida danjirayaasheenii hore ee Soomaaliya lana soo shaqeyn jiray dawladii General Maxamed Siyaad Bare waa danjire Cabdalla Khalid Tahir Yusuf run ahaantiina aad ugu takhasusay arrimaha xagga Carabta marka maadaama ay xiisad aad u kulul ka jirto wadamada Carabta waxaanu maanta door bidnay in aanu ka yara nimaadna dhinacan Mareykanka oo aanu nimaadna dhinaca iyo Carabaha oo aanu bal wixii fikrada aanu ka weydiino oo aanu ka soo gudbino fikradiisa maadaama uu yahay safiir kamid ah safiiradeeni oo aad ugu takhasusay arrimaha Carabta Khalid Cabdalla ku soo dhaw Somali Sad su'aasha ugu horeysan ku weydiino waxay tahay arrimahan Masar afgambi baa ka dhacay la socoto bal wax ma nooga sheegi kartaa afgambiga iyo xaaladiisa حسين سيدة ولا سقطت هذا مصر إلى مدة جروب صوبحي أو ليراد التمرد أما ريبينج وصحيح يوم مدة إلى مدة بدن أروريني ما أيامها كانوا واتوي كوبلنا مركا أيامها واتي مظاهرات بدن يوحى أي ماشي أي كلام وحى لجوهر بين دولة مدحوين أحمد مرسي أما حزب أخوان المسلمين مركبة لسوتة مدة وحلا قلت همي إن دولتي ماموتي سيدي للربيع يسيدي التورد وقعلي أنا سفي عن أنا أودن لكن حسين واحد كل شيء قفكي الرماها مصر للصعدة إلى مدة دي شنية طبعا كي عشوا قدام بيسي ولا فيلي وحمان تدعي إنه دعي سي ملتير واحد إن دلكة لقوا بدباديني لكن إن شاء الله وحن أفل لنا ولا له مصر إن النبض يعني سيدي لكن تاريخها مركز الله إيجو أرنت مصر ما أنت كد علي مدة لقيت شو دوري ولا 20 سنة واحد كد علي ألجأ واتي قولي أحزابتي هذه مسلم كأي دور الشدي ألجر أي كنا جحية نتي ملتريجو أفكن بي مركباتي شركي dadkii la socda Jazaa'iriga wixii ka dhacay nabad geliyo iyo waxa ma helin diig badan baa meesha ku daatay waxaan ka rajaynaynaa inaanay waxaas ka dhacin laakiin dadka sida siyaasadda Masar Soomaaliya ama sida madaxweyne Mursi shalay uu sheegay in haddii militarigu ay soo qabsadaan ama afgambi sameeyaan kelmadda carabiga uu isticmaala ala guddati on my body upon my body yani إن الدكتور كحت كلا مركز تاسع لقى بقية إني مصرنا ودل وين ودل ترى بدن أحزاب تانا حتى إسلامي مركز اكتدنا ويبدنيهن قار نيوترال قار آد حجم سيف البود قار أنكاس مركز مصر ودل وين هدي وكل دعوة نصيب حمر دبعته وين هي جارسة فيلم كذا نوي جاري عند الكعب بعد أكتر سوريا وحكي داعي معناته إني ما يلو بدن إنسان يصير لكن واحد رجعنا إن مصر در علماء بدن إيو خبراء بدن إيو فقهاء بدن ومال علمي إني وحي أفترض دوران إن شاء الله سياسة يعني ورجعنا إن ما دام إن ما كان أخوان المسلمين أيه ما كان دولة إن ما كان ملتريجون أيه ما سيركلر أو عن يو ديني وحاس شقة كلهين مصر سي سوماليا كلمة laga yaaba inay bal qabiile iyo qabiil hadda ras kulay arintu qabiil isku bedesho sida Soomaaliya kale مصر waxa la yiraahdaa sarkil tawaif hadda shalay حتى waxa laga sheegay haday gobolada qaarkeed gaadho sida maxaafadaadka gobolada Saciid oo kale waxay u badan tahay waxa degan muslim iyo masiixiyiin oo had iyo jeer wax dhaxdhacaan iyadoo aan waxba jirin taas aad looga baqaya waxaan sidan ku iyagu qabiil iyo waalo maaha sideena laakiin afkaar xisbi waxa jira dadkii hore oo lagu sheego naasiriyiinta
waxyaabaha badanaaba la isfahmi waayey oo dadkii cabdinaasir waad ogtay xisbiga ikhwaan muslimiin iyo cabdinaasir waatii ay ma rabeen inay cabdinaasir dilaan oo isna uu xirxiray tiibaa weli ay jirta haddana jirta oo sababta dad badan oo mudaaharaad u baxayeen oo naasiriyiinta ka tirsan haddaad taqaaniin ninka madaxda u ah waa xamdiin sabaaxi baa la yidhaahda waa gruub aada u weyn masiixiyiintii baa dhinaca kale ay kaa jirta ama masar waxaa la yidhahdaa aqbaar axzaab alislaamiyiin baa jira oo iyagu xagga ikhwaan muslimiin kasii xag jira oo xataa hadda mudaaharaadkii iyo waxay ku jira against ikhwaan muslimiin oo xagga doorashada iyo waxay ka hadlayay waxaa jira ilaa muddo oo hadda xoog u shaac baxay qolada aswaaniyiinta oo koonfurta aswaan oo yara sida midabkeenna kale leh oo saari oo weliba iyagu waxay rabeen inay qadiyadooda geeyaan international waxyaabo badan oo saas ayaa soo baxaya oo dhibaato badan keenaya laakiin sidaan kuu sheegay saas ay tahay masaaridu waa dad dalkooda aada siday sheegayaan had iyo jeer laga arko dalka aada u jecel ilaa guddigooduna ay ku hadlayaan militarigana ku hadlayeen akhwaanka ku hadlayeen mucaaradka ku hadlayeen in masar la badbaadiyo oo aan loo ogolaan inay meesha ninka azharkana madaxda oo daraad warqad buu soo qoray ciidanka dadka wax oo dhan oo ay arrintaas ku kala hadlay wax kasta waa dhici karaan laakiin haddii ay ku dhacdo sida Soomaaliya tirada badan iyo dadka badan waxay keenaysaa dhibaatadu inay aada iyo aada u weynaanayso iyo kala googo iyo kala burbur weyn ay keenayso aanay ka kamin laakiin sidaan kuu sheegay rajo weyn baa laga qabaa inay bal wuxuun un ay carabiga waxay dhahaan tahdi'a in dejin ay timaado ayaan saasaan filay maxaad is leedahay way kaliftay arrintan maadaama madaxweynaha iyo dowladduba isneed sanad maxaa soo dedejiyey in dadkii dowladdii hadda doorteen ay ka hor yimaadaan xuseen siduu madaxweynuhu laftiis u sheegay khudbadiisii wuxuu yidhi qaldaad badan baan galnay haddaan qaranayaa inay qaldaad ay jireen qaldaadka meeshii lagu tuumiyey waxay ahayd masar towrad baa ka dhacday waxaa ku jiray masaari oo dhinac kastaba leh diin kastaba leh masiixiyiintii baa ku jirtay xarakadii ugu horeysay xarakad kifaaya baa la yidhahda kifaaya means enough oo xusni mubaarak tiri enough is enough kifaaya yani wax intaan ka badan iyada horeysay waxa ku xigtay xarakad kale ama urur kale la 6 October dhalinyarada ayaa meesha ikhwaan muslimiinkiina waxay wadad organized bay ahaadeen dad xisbi weligiis ilaa 60 sano ka badan meesha jiray laakiin inta badanaba underground يعني dhulka hoostiisa lama ogola la dagaalamayay حتى dawladda xusni mubaarak markay axzaabta siisay way u diiday iyaga inay u ogolaato inay si sharci ay u shaqeeyaan markaas si kale sabab kale ayay u shaqeynayeen marka qaldaadkii waxay ahayd ikhwaan muslimiintii markay meesha ay heleen ama madaxweynuhu uu helay inay dadka kale ka qaybgeliyaan oo towradda ku taas baanay sameyn marka had iyo jeer hadda masaaridu waxay ku leeyihiin akhwana yani waxay ka dhigeen dad raba inay ku eedeeyaan mafaasilkii dawladda meel walba inay iyagu qabtaan ayaa lagu fahmayey dadkana sidaad u ogeed xagga ama shacbiyadda ama sumcadda fiican waxay ku heleen ay dadkii service u sameynayeen مصر waxaan joognay waxaad arkaysaa waxay leeyihiin isbitaallo yaryar waxay leeyihiin clinic qofkii jiran qofkii wax u baahan dadka baahan aad saasay shacbiyad weyn ay ku heleen marka shacbigu wuu rabay laakiin axzaabtii iyo wixii dadkii kale baanay wax ka aanaysiin qaladka kalena waa markii uu ninkan attorney general ama عربي حاليا المدعي العام حير الاليها الجود انه بدلوا انه كلا كانوا تاسع في مشكله اي كانت دستور كي دور وحيابه او
axsaabta kale ama dadkii towradda ka qaybgalay ay diidanaayeen ayuusan chance siin ama consensus aynin madaxweynuhuna marsi maalin dhaweed taas ugu qirtay wuxuu rabayna hadda inuu saxo laakiin chance baa na siin waaye I think haddii chance la siiyo in wixii ay hagaagi doonaan dhaqaalaha xagga dhaqaalaha dawladda ka waran dhaqaalaheedii ma hoos buu u dhacay dadku maxay ka cabanayaan dhaqaala baahan arrinta waa arrin siyaasad ku saabsan xuseenow may dhaqaalaha ayaa ugu muhiimsan dhaqaalihii masar markii uu ugu dambeeyey xusni mubaarak uu ka tegayay meeshii waxay haysteen bankiga central bank reserve xagga dhowr iyo 30 milyaar oo dollar ka badan baa ayaa meesha u tagtay wixii wax ku kordha matalan waa wax ilaa hoos u dhacay marka waxaa lagu jiray xaggii maamulka ninkan xisbiga kan waa xisbi underground ahaa maamulkii iyo xaggii dhaqaalaha ayaanay wax been aanay siyaasaduna way ku xirneyd ama Europeanku ama dadkii kale dee cunaqabateen oo rasmi ah ama ay sheegeen ma ay jirin laakiin practical masarna xuseen waxay ku nooshahay badanaaba tourism sanadka hor intii mudaaharaadkii iyo dariiqyadii iyo wixii ay xireen tourismkii hoos buu u dhacay intii dambena qoladii markii xataa xusni mubaarak uu ka tegay sidaad la socotaan waa la sii waday barnaamijyadii ma ay istaagin wixii ma ay istaagin maalin walba horta dalxiiskii oo milyaaro badan ka soo geli jireen dad badan intaasoo dhowr milyan oo intaasoo ku shaqeeyaan dalxiiska wixii oo dhan baa meesha ka baxay maalin walba hoos badan xagga siyaasadana markay timaado xusni mubaarak gacan fiican buu ka heli jiray xagga dowladaha khaliijka siyaasaddii iyo waxay intay dowladaha gacanka sida imaaraadka iyo masar meel xun bay isla gaareen sacuudiga saasi kale sacuudiga inkastay markii dambe ay isla hagaajiyeen khaliijka qatar baa aada u taageertay oo waxay dhigtay ilaa 3 milyaar ay bankiga sii dhigto masar si ay gacan u siiso wax ay amaano ahaan ay ku dhigtay bankiga si ay inta trust ay meeshii siiyaan ayaa jiray laakiin dadkii kale ama intii kale khaliijka wax weyn carabta lacagta lahayd wax ma ay tarin sidii ay meeshii sidaad ula socotay xagga dhaqaalaha World Bankna shuruudo iyo waxaas ayuu aada ugu xiray iyagiina dad khibrad leh meeshii ma gaareen xataa isbedelkii dhacay bishii May oo ay sameeyeen reshabalkii wasiirada taasna waa laga canaanay 3 ayaa wasiir baa la 7 baa xisbiga madaxweynaha taasna aad baa lagu xumaaday waliba wasiirka dhaqaalaha nin aan khibrad weyn ayaa lagu tuhmay inuusan lahayn oo ay ahayd in marka dhaqaalo iyo siyaasad iyo waxaasba labadaba waa isla socdaan dhinaca qadar hadda u gashay qadar isbedel baa ka dhacay iyada laftigeeda boqortooyadaas marka wax ma nooga sheegi kartaa أصلاً قطر وحي هذه الشيء الواحد من عربي واحد نموذج أما تصارع واضح عرفت ما دخل عرفت إلى مدة وحنا قلت لهم كين كرسي قبصة وكرسي كذا إلى ما ننت قبري وجلي أما حوق لك عطوات لا والله قبري وتجي أما ولا قد خلصيها أما السجي بقى ويجسي مكان نك قطر الشيخ حمد wuxuu tusaale fiican buu tusay isagoo dalkiisii aada u horumariyay qatar haddaad arki lahayd xuseen intaan uusan qaban amiirka hadda iscasilay qatar wadan ma ahay ma dhisnayn xitaa sida khaliijka dalka aada iyo aad ayuu u dhisay magac weyn miidiyaha waad aragtay aljazeera maanta meel walba waa laga yaqaan qatar foundation waxyaabo badan meel walba oo mashkilad ay jirto inay taageerayaan inay wax ka qabtaan inay caawiyaan ama masar ha noqoto ama tunis ha noqoto ama meel walba suuriya si kale ayay
ka noqotay ra'yigii laakiin way taragariyeen inay caawinaan libnaan bay caawineen markii israa'iil yacni meel walba gacan weyn weyseen magac weyn ay u sameeyey iyagoo toobka ah inuu caafimaadkiisana qabo da'diisana ay macquul tahay inuu ku wareejiyo wiilkiisa tusaale fiican ayay noqotay taasna waxay saameyn doontaa shaki la'aan wadannada kale boqortooyinka iyo inay meeshii arkaan iyo madaxweynayaasha muddo dheer sidii masar 30 sanood iyo yemen iyo meelahaas lagu bedelay طبعا waxaa imanaysa qatarna hadda siyaasadii baa isbedelaysa siyaasaduna way isbedelaysaa hadda ilaa muddo anigu sida aan filayo waxaa lagu tuhmiyey qatar inay jamaacada al-ikhwaan al-muslimiin ama magac kale ha ku sheegto dam jadiid ama waxaas oo dhan inay isbedelayaan ilaa muddo amiirka cusub waxay fikradiisii iyo ra'yiga talabaad waxyaabana dhinac kalena waa qatar walba khilaafaadkii iyo waxa mantiqada dad moogtay markaad dhaqdhaqaaqdid ama wax samaysid qalad waad yeelanaysaa jalasna moogtay xaasidnimo ama waxay dadkaas waa naga cod badnaadeen waa naga taasna ay way jirtaa taasna way dhammaanaysaa laakiin qatar taariikh fiican ayaa amiirkaas uu ka tegi ama ka tegi doonaa ama waa hagaag maxaad is leedahay arrinta Syria maxaad nooga sheegi kartaa Syria dhiig badan baa ku daatay ilaa 100,000 dadka badan baa ku dhintay marka arrinta maxaad is leedahay hadeer xal uu noqon karaa Syria ilaa muddo wax la yiraahdo حوار waxa weeyaan waa inaad negotiation mufaawada wada hadal wax qori ama aaradis ama ku dhamaan ma jiraan Soomaaliya taariikhdeeda waa aragnay meel kasta saas weeyaan waa in la fariistaa la hadlaa dalkana la badbaadiyo arrinta tan hadda saad ilaa muddo ay ahayd in rejiimku waa ku dhiganay ra'yigiisa معارضكنا رأي جودوا مد والبكتلة وقولي بانك تخلصيا وعرفتها سوريا دعل إلى دعل بقوي إلى كونكو إلى ميل والبا مقالون كذي ويطابعين هدنا واتن لسود يارين جنيفا 2 تاس إن ولا حضل هذا خلاف كو حويا ولذا معارض كو حيلين وإن أوبشن كان مدحبينه إنه كتنازله إنتان ما شاء الله إيمان هذا نوع كله والمفاوضات كاس أيو كتجي لكن ما إن شرطي يعني لو قدين ولي ويقسمت هاي لكن دتك الدولة دي بدنا جعان سيني معارض حتى واحد مدة إني قار بدن هي كلا وكل حيان إني مفاوضات في الكلام هذا ما عنده الدوحة وحكى دعي شر دور ميلود كدعي لهذا أصدقاء سوريا Friends of Syria وحب جاري إلى بقول يكونتم دولة يوروب آسيا عرب ملول فأنت دولة الدوحة لباتن مدمن في ودن بي مركز ودن وحي كوريا حين مفاوضات أي كلام مركز نصيب حمو وحي أهيد إني ولا هذا الله بلعبا كفر لكن مع ماضي محل هذا وقت كستقبله لكن waxay ka fiican tahay inaanad weliga aanad bilaabin marka Suuriya waa dal aan aad u qadarin waliba Soomaali hadaan nahay maanta dadkeeni waxa aad bay soo dhaweyn jireen marka waan ka xunnahay waxaas dhinacan Yemen sanad ka hor iyaga laftooda rabshadaha ka xagee ku dambeeyeen rabshadaas Yemen nasiib bay lahayd waayo dawladaha jiiraanka oo waliba Sacuudiga ma ay rabin inay sida Suuriya ama sida inay wuxuun ay ku hakiyaan waatay sameeyeen initiatives ka khaliijka baa loo bixiyay mubaadara khaliijiyya ninkan oo si tartiiba oo u dhiibo dhanacay aan wax loo raacin tiibay noqotay inkastoo khilaafaad yar iyo waxa ay dhacay
laakiin yeman sida la socoteed waxaa jira dad hubka qaatay waxaa jira dad waqooyiga yeman yani xuduudda sacuudiga niman la yihahdo alxuutiyiin oo iyagu hubka qaatay koonfurna yemantii hore oo la oran jiray democratic yemen oo ama yemantii koonfureed oo hadda iyagu laba ra'yi ay meesha qaarna ay leeyihiin federationkii baan ku noqonaynaa in dawlad federation ay noqoto oo annagu aan maamul yeelano sida hadda tan maaha oo annakii waxbana aan warqadii aad uga baahantiid aad sanaca tagtid annagu dawlad ahaan jirnay iyo qaar le aan kaba go'no oo go'ashada taagan laakiin dadka kale go'a taagan ma badna waa laga badan yahay inay marka rajo fiican baa weli way socotaa hadda waxa u socda wada hadal martubay lagu bilaabay waa la joojiyay hadda mid kale ayaa socda weli wada hadalkii baa la isku haysta laakiin nasiib wanaag wada hadalkii baa weli socda ilaa maanta ayaa socda waa hagaag maadaama aynu wadamada carabta ka hadlayno soomaaliyana waa wadamada carabta ka mid tahay soomaaliya marka 20 sano Soomaaliya burbursanay runaantiina wadamada carabta waa wadamada ugu awooda badan uguna dhaqaalaha badan adduunka marka maxay Soomaaliya maadaama adigu aad ahayd agaasimihii waaxda carabta ee Soomaaliya bariga hore Soomaaliya dawladii Soomaaliya qaranka Soomaaliya u fadhiyay maxaad isleedahay Soomaaliya waxa uu inoogu qaban waayay 20 sano aan burbursanay Xuseen qaladku labada dhinac buu ka jiray dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca carab dad badan baan maqlaysaa carabta maxaad waa run sidii la rabay wanaagay laakiin dhinacna iyagana waa siin markii hore dawladii ay jirteen waxa jiray dhowr meelood oo mashaariic ay rabeen inay sameeyaan oo aan anigu goobjoog oo ahaa ama aan la socday mashruuc weyn ay Ciraaq sameeynaysay dhowr mashaariic ay Kuwait rabtay inay sameyso imaaraadkii mashruucii mareeri ay sameysay oo wixii ka dhacay waa tii la ogaa Kuwait maalin aan wasiirka la fadhinay intaan Kuwait maalin ka horteed la gelin ayuu wasiirka la hadlay dariiqa waxay rabeen inay sameeyaan ilaa Jowhar xamar ilaa Jowhar oo Kuwait rabtay inay sameyso oo intii dawladda ka leeyahay meydka dib annaka kuwa kale ayaa sameynay طريق إلى من مركا إلى أفقوية إلى مركا ويترين هكذا بدن بحكي دين عين صومالي ذا أي كتير أوكي بربركي مركو دعي واتي أدويت وفدي باكي من صوماليا برايم مينستر عمر عرفة برايم مينستر مركي هو الدولة قار وي هكذين إني كو قابلان أس برايم مينستر مركي دمنا قار وي أركين goobjoog waa yani waxaan ogaa anigu intaan ka ogahay yani example ahaan hal dawlad baan ku siinay kharash badan iyo lacag badan imaaraadka kaliya ayaa 10 milyan oo dollar oo cash bixisay iyo 10 milyan oo dollar oo raashin ah raashinkii waa la ogaa ma u gaarin waxay ugu talagaleen in dekadaha Soomaaliya ay leedahay afarta dekedood in uu gaaro dekad kaliya ay tegin 10 milyan يعني ما أوكي وفودي والبقوا إيمانسي أو صومالي إنسان أما كوي ملجارك أما كونا وحوي سنتين لكن دي واحد أركتين وحي إناني سيدي صح أما أن واحد لقوا قبنين تاسي قدر دار كدكتين لكن هذا الدولة بعدني دولة هذا هذا حرير بي لبلادين والدولة رسمية فورد إلى أنتي سيدي بربكو وداعي marka hadda rajadu way weyn tahay dawladda madee hadee trying their best waana below chance and seen may 20 sano ayaa wadanku burbursanaa 20 sano maadaama wadanku burbursanaa de waxba noo maysan qabanin nacam arinta maxaa kalifay inay inoo qaban waayeen dhinaca Soomaalida miya ka timid baa ka wadaa nacam oo laga waayay system ay la shaqeeyaan miya horta mid baa jirta laba hadee aan ku dal carbeed baa jira sideenna oo muddo 10 sano iyo dheeraad dhowr iyo 10 sano dagaal ka socday sida Lebanon oo kale waa sax
iyo annaka xarba haliya meesha ah libnaan laakiin mas-uuliyiinta markay tegayeen oo la qaabilayay hadal waxay ku hadli jireen hadal qaran ama ninkii ka hadlaya iyagoo jabhado gudaha ku dagaalamay laakiin dadka baxaya matalaya dowladda markay qaran ahaan bay u hadleen annaka nasiib xumo soomaalidii iyadoo meesha wafdi markii uu tago meel si intii dagaalka sokeeye uu jiray ama intii ka dambeeyay dowladihii kumangaan si qaran lagu fakari maayo si dantii wixii war maxaa war bilaan intaas haddaad nala qabanaysaan anigu 1993 shir ka dhacay Ammaan anigu waxaan focus gareynay arrimaha jaaliyadaha oo dokumentkiisu yaal ururka arab shaqada carabta oo u furan yahay qof walba waa heli karaa wada meeshii aan ka tegey carabtii baan waxa ahaa April 3 Ammaan marka waa wasiirada shaqada ururada shaqaalaha iyo xogaha ganacsiga meeshii waan galaa inkaygu waxa ahaa inaan waliba dowladda khaliidka aan gaar ahaan intaan isu aragno aan ka hadalno war nimanina waxbana haddaad noo qabanayn jaaliyadaheena meesha idin la jooga inaad si gaara aada u egtaan dadkii qaraabadooda raba inay keenaan xuseen 3 maalmood shirka ka socday cid wasiir ah oo dee ku qaabilay Soomaaliya Kenya dan loogama keenin markii dambe wafdi walba qofka madaxda khudbad buu xaq leeyahay inuu jeedo khudbadu laakiin arrin bay annagana ma anigu markaa waxaan ka imi shirka Addis Ababa khudbadii meesha keedii aan ka hadlay waxaan yahay halkaa waxaan idin inaan ra'yiga ama waxa idin ka qabo muwaadinka Soomaaliga inaan idin sheego waxay aan ka sheegno carab ayaan hortooda dhigay aad iyo aad ayay u garowsadeen iska dhaafay giddigood kuwiiba mid walba wuxuu ku leeyahay maxaan qaban karnaa waxyaabana way qabteen marka waxaa la rajeeyay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed had iyo jeer inuu markuu hadlayo inuu hadal qaran u meesho waayo haddaad tiraahdo anigu reer hebeligu ma garanayo waxaan kuma fahmin Soomaali ama halkanaan ahay ama halkanaan matala ama war Soomaalinimo meesha kula xisaabtan dawlad baan nahay maanta haddaan dhibaataysanay berito dhibaatada aan ka baxay saasaan ula hadalay shalayto dawladaha hadda maanta aad arkaysid loo tagayo wax la weydiinayo wax ma yahan jir waxbana ma haysan Soomaaliya ayaa u ahayd wax weyn oo iiman jireen dawladaha khaliijka siiba imaaraadka iyo qatar iyo Oman iyo weyn yaqaaniin halkaas ay in saas loola hadlo war maanta idinkiisa berito waa soo ala marka labada dhinac bay ka tahay iyaguna awood iyo ihtimaam yani culays ma ay saarin sida xataa ay gaalada ama dadka Europeanka iyo waxa ay ihtimaam siinayaan iyo Mareykanka dadka kale iyo xagga dhinacayna way in su-aasheedii kale waxay ahayd hadda Yurubiyankii Mareykankii adduunkii kale sida Afrikaankii Soomaaliya aad baa loo danaynayaa waad aragto badeeni xitaa waxaa buuxa intaasoo maraakiib India waxaa la sheegay 2025 markab oo dagaalka xitaa inay meesha ku hayso nacam dadkii Soomaaliya aad baa loo danaynayaa Soomaaliya loo danaynayaa wadamada carabta markaa maxay iyaga waa sida xaaladooda Soomaaliya xagee ka taagantay wadamada carabta dee hadda laba aad iska barwaaqo isaga jira oo iyagoo aan inay mashaariic haddaan la tagno inay nagu caawiyaan maahan iyo qaar iyagoo arrimo umurahooda mashquul meesha isaga ana meesha ay way jiraan laakiin hadda anigu sidaan arkay aad bay carabtu bilowday inay u danayso waad aragtay wufuud badan baa hadda tagtay xamar qaarna way kusii socotaa rajo weyn baan ka qabnaa hadda iyaguna laftood way og yihiin Soomaaliya haddii nabadgelyo yar ay hesho khayraadka maanta Soomaaliya ku jira way og yihiin way la socdaan 1990 ayaa وزير تلقي سميشي لما أنتم بلدكم غني
qofyaha way ogyihiin khayraadka ama dadku cid kasta waa ka qanisanay nabadgelyo yar iyo tafaahum iyo wadaninimo in dadka ay meesha dalkooda ay aaminaan ayaa meesha iyaguna taana way la socdaan wayna nagu caawinayaan qaar noo soo shaqo doonanayna way jiraan ihtimaam weynna wayna saa culays weynna wayna saa wayna arkaan qaar markii laga hadlayo nabadgelyada carabta caam ahaan way arkaan in xubin muhiim ah oo meel istaraatiiji ah ay ka maqan tahay way ka hadlaan taas wayna ogyihiin al-amn al-carabi markii laga hadlo caam ahaan laakiin iyagii laftood baa meesha haddaan arrinta amniga aynu ka hadalno ama nabadgelyada hadda waxaa ogtahay dowladda masar ee haddeer dhibaatadu ka taagan tahay siyaasad ahaan iyo dowladda aan dariska nahay ee etoobiya waxay isku haysteen dam ama biyo xidhaan la dhisay iyadoo etoobiya horey uga dhistay goday soomaaliya oo biyihii naga xidhatay marka arrintaas wax ma nooga sheegi kartaa xuseen horta anigu sharciyaan ma laakiin waxa jira sharci waxa beeya wabiyada ama meeshay ka bilaabmaan iyo meeshay ku dhammaadaan iyo dadka dowladda dhexe nidaam international ayaa jira oo meesha aan lama dhaafaan Ethiopia markay dhistay daamka biyihii Soomaaliya dowlad Soomaaliyeed oo lama faawado ama wax ka ma ay jirin way dhistay haddana dee dowladdeena way kala hadli karaan dad waa si basiid waa in biyaha inta ku iman soo daayo wax la og yahay markaa taas dowladda ayay u taal waqtiga iyo waqti ay u darayaan masar baa ku timi heshiiskaas waxa weeyaan heshiis ka dhaxeeyay ingiriiska ayaa meesha sameeyay marka dowladdu xorba ma ay ahayn ilaa masar ku gaar ilaa uganda ilaa waxaas oo dhan marka dowladaha niilku horta waa laba webi waa blue nile iyo white nile kan ugu weyn waa blue nile oo kan Ethiopia ka yimaado kan nile ka cad oo ka yimaada lake victoria iyo uganda iyo area sida kan uma u badna labadu hadhowto meel suudaan bay ku kulmaan nile kaas ayaa meeshii ka yimaada marka arrintaas masar ilaa ayaami xusni mubaarak ayaa meeshii qoladaas ay ku shireen waa la isku afdhaafay ma ay iman qoladii intii kale way watay marka laba dowladood oo biyuhu ku dhammaado suudaan iyo masar ayay ahaayeen adigu markii dambe waa lala hadlay suudaan hadda maalin dhaweyd wasiirkeedu wuxuu yidhi arrintan hadda ka dhaxay masar waa daam weyn la dhisay daam annaada ayaa la yidhaahdaa oo muddo ayuu qaadanayaa biyo badanna meesha u helay suudaan oo la socota masar oo isu had iyo jeer gacan saar iyo waxa iyagu ay labadoodu ay ku hareen ku lahaayeen wasiirka suudaani waxay anigu waa la yaabanahay masar maxaa baqtinta iyo waxa uu gelinay wax faa'iidooba soo kordhinay marka waad arkaysaa inay labadu ay isku khilaafsan yihiin laakiin nasiib xamoo maalin dhaweyd masar madaxweynihii arrintadan waa arrin muhiim ah oo xasaasi ah masar niil la'aantiis ma noolaan karto masar roob kuma da'o 10 sano 20 sano roob masar kama da'o masar waxay ku nooshahay biyaha niilka uga imanaya waa qudrad ilaahay qurumihii horena waxaa la yidhi niilku waa hibe ilaahay uu masar siiyey haddii niil uusan jirin nolol masar ma jirto waa meel roob wax ka daama haddaad naafka aragtidna dadku waxay degan yihiin labada dhinac oo webiga haddana way bateen intaas oo milyan marka masar niil taabashadiisa waxay u tahay waa dhiigooda ma noolaanayaan haddii meeshii ay iman laakiin ethoobiyan waxay dhaanka waa shuruudihii sida suudaaniintu xataa ay sheegeen wax baqdin inay laakiin masar alaan wasiirkuna hadda 2 week 10 casho ka hor waatii uu tagay wasiirka way ka wada hadleen marka arrin weyn halka ka iman karta ma jiraan haddii mid walba xuquuqdiisa meesha la ilaaliyo
laakiin xuseen waxaan kuu sheegay maalin dhaweed waxaa dhacday markay masaaridu shirayeen oo madaxweynuhu uu shiriyey dadkii siyaasiyiintii maca xisaabta mucaaridka maca wixii oo dhan arrintan in laga hadlay nasiib xumo waxaa dhacday in hawada media ayay way furneen microfonada u furnaa wafdigii madaxweynihii iyo axsaabtii mucaaradka iyo wixii hadlaya oo dhan ma ay ogeen inay furan yihiin dee mid walba meel buu isku qaaday mid yiri waa inan awalba soomaaliya ayaa meesha aan wax weyn nagala qaban jirtay waxaa meesha mid le oromada aan gacan siin oo waxa ka sameeyaan meesha mid suudaan aflagaadeeya mid walba meel buu qabsaday dee fadeexa ayay noqotay dhibaato ma ogi arrintaas marka ku talagalbaa ayuu loo sameeyey maqaalad dhacay kullikaba dhaawac weyn buu gaarsiiyey diblomaasiyadda masar inay saas ay meeshii u hadlaan marka taas ayaa meeshii haddaan usoo noqono dhinaca soomaaliya maxaad hadda kula talinaysaa soomaalida siiba maadaama haddeed qurbaha joogto waad aragtay dadka qurbaha jooga soomaaliyana kolle dee waa tagtay waad ka timid maxaad is leedahay markaa dadka qurbuhu ay ku kordhin karaan dalkii hooyo dadka qurbaha dadka hooyo waxay ku kordhin karaan inay gacan ka siiyaan xagga dhismaha inay mid walba meeshiisa iyo mashruuc yar haddii uu geeyo ama group ay isu tagaan ama hay-ad uu yaqaan uu geeyo meel kasta soomaaliya ha ka geeyo wax weyn ayay taraysaa qurbaha matalan aan joognana dee waa aragnaa maraykan baan degannahay gaarigaagaad qaadanaysaa state ilaa state baad u guuraysaa kan in soomaaliga ay ka baxdo cuqdada qabiilnimada meesha yar halkan anaale iyo halkan reer hebel baa meesha waxaas waa inay naga baxda haddaanay taas naga bixin dalku ma horumaray dadkeenna weliba qurbaha joogay inay ka bartaan inay ka abraqaataan annagoo soomaaliya oo africa meesha ka nimi ayaad maanta xaq ku leedahay meeshii aad joogtid ama yurub meel kasta ha ka ahaato ama maraykan ama meel walba marka waa inaan taa fikradda la tagnaa walaalaheen aan janska ahayn aan bixin in adeerkaa walaalka ina taa aad u sheegtid waa in meesha la yani niyad quraanka wuxuu inama alacmaalu binniyaat haddii ay niyaddu inoo hagaagto oo wax hoose aynan isku aragin wax naga xumaanaya ma jiraan laakiin haddii aan raano wallaahi arrinta reer hebel bay dan u tahay haddii meesha arrinta tanna may reer hebel bay dhaawac u keenaysaa war reer hebel ha laga baxo dalka ha la dhiso dalkeennu inteenna saddex laabkeen haddaan meeshii aanu nahay 30 milyan 40 milyan waa nagu filan yahay khayraadkeena ku jira dibad ama dhulka hoosteeda ama dhulka korteeda ama badda yaa awda mar dhow baad sheegtay badda kaliya arrin baan ku xustay markaan tegay urdun arrinta aan ka hadlay baa aad soo dhaway wasiirka arrimaha dibadda urdun markaas 93 waxaa kaamil abu jabir markaan u galnay wax yaran inta ayaan macna ustaad Ismaaciil aan meesha fadhiisanay ay keef qofka Soomaaliya soo dhawaada oo dalkii laba kimood markuu yiri wuxuu ku sii jeediyay safiir oo wuxuu ahaa chief of cabinet ninka xafiiskiisa madaxda wuxuu yiri hebel ya Maxamed harumaysan waxaad si inaan ka aragsid Soomaali baa gaajaysan iyo gaajada harumaysan waayo Soomaalidu waxay shay kaliya badooda ka baxa waa anagu waxaan u naqaan shrimps isagu qareedis buu leeyahay shrimps ka kaliya haddii ay si fiican oo organize gareeyaan shirkado meesha ku dhiibaan qiimihiisii kiilooga iyo danka Rotterdam waa intaas kaliya ayaa ku filan waa hal shay oo badda ka baxa oo shirimpska la yiraahdo oo yiri badoodana wax kasta mar dambe waxa uu yiri anigu Soomaaliya ka shaqeey ninka wasiirka waa dowladda expert baan faaw u ahaa door iyo 60 xeebaha oo dhan baan ku wariyay study baan ka sameeyay marka Soomaali buu baa gaajaysan anigu ma rumaysan waxa u dheer buu yiri beerahooda xoolahooda intaas maxay keeni lahayd marka intan badeeni waa la dhacay xoolaheeni waa saas ayaa loo dhacay annakii baa soo muuqan
marka in waxaas laga baxo oo si fiican midnimo fiican walaaltinimo fiican waliba maalin dhaweyna July waa meeting yani spiritkii aabayaashin laakiin mana waa inaan lagu soo noqdo haddana dad badan baa jira dibadaha ku dhashay oo Soomaalinimadu la weyn tahay xarunteena ayaa ka mid ah hadda le Soomaaliya marka waa intaa laga baxa waa cidna uma baahnaan walaa carab walaa annakii baa isku filnaan haddii aan dhab ay naga tahay wax marka intaas loo noqdo haddana dawladda waa federal in walba meeshiisa inuu horumariyo wixii oo dhan baa isla kobcaya isla koraya marka fikriyan waxaa is leedahay in dalku wuxuu ku horumari karaa in qof walba meeshii uu maanta wax ka qaban karo inuu wax ka qabto meeshii taas waa mid laakiin niyadiisana ay ku jirto had iyo jeer sida Soomaali midnimadeeda waayo fiiri taariikhda horena waa la yidhi midnimadu waa xoog al-ittixaad quwa fiiri midowga Sovieti markuu intii badnaa oo meesha iyo maanta inkastoo dawladdii ugu weyneed Russia ay ilaa hadda maanta taagan tahay oo iyada ayaa ugu weyneed laakiin waa kasii xoog weyneed marka ay meeshii ay dad badan marka meel walba midnimadu Yugoslavia waa dawlad markay meesha isu tagtay xoog ay ahayd dad bay caawin jirtay haddana waa aragtay intay u kala firirtay ilaa 5-6 dawladood bay hadda weeyeen Bosnia Croatia Montenegro Serbia intaas ay oo hal dawlad bay ahayd oo meel walba power weyn ay marka midnimada waxta laakiin maamul hoos ahaan walba hays maamulo way u fiican kii kale halkan in loo ogolaado dadkii war hadaad maanta aad timi adoo Puntland inaad timaadid halkan xamar inaad tagtid Hargeysa inaad tagtid Khaatumo inaad tagtid meel walba aad tagtid Jubba Bay Bakool meel walba gobolada dhexe inay ku furnaato hadaad rabtid halka mashruuc ka samee hadaad rabtid meesha aad ka soo jeedid ka samee laakiin wixii oo dhan marka aad ku fariid suuq weyn waa inaad ku fakartaa mashruuc yar markaad geeshid wallahi suuqayga maaha inaan meesha goofka yar ama Soomaaliland ama Puntland no waa inuu ii furma waa in mashruucan geeya meel walba meesha uu tagay hadii uu kale ilaa waliba East Africa ilaa meel ay inaad meesha geeysid the more dad badan aad heshay dad badsatay dadkaagii oo maxaan oo kala qaybsanay waan gartay in hadda qurbaha dhalinyaro badan ama dad badan baa diyaar u ah inay dalka way ku noqdaan maadaama ay hadda dawladda ka dhalatay ay nabadii soo noqonayso marka dadkaas maxaad kula talin lahayd iyaga gaar ahaan aniga waxaan kula talin lahaa qof walba oo qurbaha meesha uu joogo inuu dalkii tago horta intuusan shaqadiisa iyo waxa inuu tago uu arko meesha uu wax ka fikiraynayo meesha wax ka dalku waa u baahan yahay dalkuna waa haddana tallaabooyin fiican ayaa ka socota inuu ku sii korsado markaad aad tagtid dad badan meesha ay tagaan waliba qurbaha ka tagaan wax weyn bay tareen because experience bay arkeen dalkii bay ka yimaadeen markoodii hore dibadii bay u marin maayo nin qurbaha ka yimi in qabyaaladii iyo sidii qabyaaladii foosha xumeyn maaha tii quraanku uu sheegay wajacalnaakum qabaa'ilan وشعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن قبيلتي فوش حميد وسيدا دعسي إلى قوس جالسي خاص أنا وحنا قرادت في جبتك في إيران الحين إني فكر كودا هرت كاس قياوين نمبر 2 هنتيض وحي أي مشروع كجلي يعني هدي أي وحكي قبل كران وحوين بيترس هذا وحنا لو إذا يابا Soomaaliya qabyaaladii waa ka dhamaatay qabyaaladii xumeed qurbaha ku hartay run ahaantiina Soomaaliya markaan tagay dadku waqti bayna u haynin bada qabyaaladii waxa way toodiiba laakiin halkan dadku kisto casayrka iska cabayaan qabyaaladii waqti u hayaan marka mas'alada wali qabyaaladii waxay ku hadhay qurbaha wallahi qurbaha ku hadhay aniga runtii markaan ku sheego hadda maan dawaan Muqdisho ayaan joogay xama maalintii ugu horeysay aan tagay waxaan islahaa ama markaan arkay dadkii
fiican ku soo dhaweynaya wixii ay ka baxay waxaas ayba aanayba ka hadleen intii xamar aniga waxaan fiil gareynayay inaan dalkaygii dadkaygii aan meeshii wax xumaan wax kelmad wax iyagiiba dadkii baan isla fadhiisan hoteelka markaan fadhiyo isla si caadi baad ugu sheekeynaysaa qaar baa meeshii fadhiya aniga baa markaa yaabanaa oo weli fikradihii hore baa iga jiray dalka dowladdii madaxweynehii waxbaad ka sheegaysaa ninba ayay ka sheegayaan cid isu qabsanaysa iyo waxaa hadal iyo waxaa ma jira dalkiina dadkiiba kusoo dhaweeya markaa tirahdaba aniga dowladdii hore baan u shaqeynaya si ixtiraam gaara oo si sharaf gaara ayaad ku leedahay maaha yacni kama khajilaysid ama kama wallahi halka ama dowladda waxaa ka wada dowladdii hore dowladdii hore maxamed ziyaad barre ayaan walaa maca dadku waxay aaminsan yihiin waxa ku xigta dowladda tan hadda waa sax oo si sharci intii maxamed ziyaad barre ka dambeysay dowlad dhibaata lagu jiray iyo baaba haddana marka maamulka maxamed ziyaad barre ha saxsanaado ha qaldoon laakiin dee dowlad baa markaa jirtay dibadda qiimaha ayaad ku lahayd kan ayaad meesha waa hagaag maanta halkaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waraysigii dheeraa ee aanu ka qaadnay cabdalla khaalid taaha oo run ahaantii ah khabiir ku xeel dheer arrimaha wadamada carabta jaanis fiicanna aan u helnay isagoo nagu soo booqday magaalada Boston ee cariga dalka Mareykanka ah isagoona uu degan yahay haatan gobolka Michigan magaalada ka degan Anab magaalada gobolka Michigan oo ah wadankan Mareykanka ah Khalid Abdalla aad kugu mahad celinaa waxaan rabaa in halka uga mahad celiyo soo saaraha barnaamijka South Korea iyo tafatiraha Cabdullaahi Xagale anigoo Xuseen Fiinana waxaan leeyahay sidaa iyo ismaqal dambo xiiso leh